soo dhawaada xogta filimada. Maanta waxaan idiin sharaxayaa filimka la yiraahdo Safyasaji oo la soo saaray sanadkii 2018. Filimku wuxuu ku bilaabadaa koox dad ah oo u safraya meesha la yiraahdo Manali si ay u soo dalxiisan. Inta ay jidka ku jiraan rakaabku waxay ka sheekaysanayaan nin qariib ah oo la yiraahdo Arun. Waxayna la yaabaan markay ogaadaan in dhammaantood ay si uun xiriir ula leeyihiin ninkaas. Inta ay la yaaban yihiin sida ay taasi ku dhici karto ayaa baskii wuxuu ka dhacayaa jid cad oo dusha sare ah. Mid ka mid ah rakaabka baska saarnaa waa geesiga filimka oo la yiraahdo Fikram. Sawirka xiga dhakhtarka ayaa daweynaya Fikram wuxuuna u sheegayaa in dhammaan rakaabkii kale ee baska saarnaa ay dhinteen isaguna uu yahay qofka kaliya ee badbaaday. Wuxuu ugu yeeraa Fikram mucjiso wuxuuna xusayaa in kasta oo jirkiisa oo dhan uu miyir laa kadib dhicitaankii haddana gacantiisa bidix ay si joogto ah u dhaqdhaqaaqaysay. Tani waxay keentaa in Fikram uu sharaxaad ka bixiyo in gacantiisa bidix ay si qariib ah u dhaqmi jirtay tan iyo markii uu dhashay. Sawirku wuxuu markaas u wareegayaa xusuus hore halkaas oo waalidiinta Fikram uu u sheegayo dhakhtarka qoyska oo la yiraahdo Raajan xaalad dhif ah oo ku saabsan mataano isku dhex milmay. Wuxuu sharaxayaa in hooyada Fikram ay laba mataano ah u siday balse mid ka mid ah uurjiifka uu ku milmay midka kale intii ay uurka lahayd. Fikram weli wuxuu leeyahay dareen wadayaal ka yimid ilmihii labaad kuwaas oo ku xiran gacantiisa bidix. Dhakhtarku wuxuu kaloo xusayaa in gacanta bidix ay u dhaqmi karto si madax bannaan ayna dareemi karto dhammaan shucuurta uu qofka caadiga ah dareemo. Ugu dambeyntii wuxuu uga digayaa waalidiinta inay si fiican u daryeelaan ilmahooda. Toddobaadyo kadib Fikram ayaa dhasha waalidiintiisuna waxay u muuqdaan inay aad u jecel yihiin. Maadaama hooyadiis ay og tahay in naf kale ay ku dhex jirto gacanta bidix ee Fikram waxay ula dhaqantaa gacantaas sidii wiilkeeda labaad waxayna siisaa jacaylka iyo naxariista ay siiso Fikram. Hadda iyo waqtigan Fikram wuxuu ku soo laabanayaa gurigiisa wuxuuna la kulmaa walaashiis Siridevi ninkeeda iyo gabadhooda oo la yiraahdo Mahalaksimi. Fikram wuxuu aaminsan yahay in Mahalaksimi ay tahay soo laabashadii hooyadiis geeriyootay sidaas darteed wuxuu isku dayaa inuu u fuliyo dhammaan rabitaankeeda labadooduna waxay wadaagaan xiriir weyn. Kadib markuu ka soo kabsaday shilkii Fikram wuxuu dib ugu laabataa shaqadiisa isagoo ah agaasime xayeysiisyada caanka ah. Wuxuu leeyahay shirkad xayeysiineed oo la yiraahdo Artak halkaas oo uu kula shaqeeyo saaxiibadiis Kitu iyo Tanali. Maalinta xigta Tanali iyo Fikram waxay aadaan goob ay kula kulmayaan macaamiil cusub oo noqonaysa Jitra oo ahayd gabadhii uu ku jeclaan jiray kuliyadda. Xusuus hore oo xilligii kuliyadda ah Jitra ayaa ku soo dhacaysa Fikram maalinteedii koowaad isna markiiba wuxuu ku dhacayaa jacaylka quruxdeeda. Isla maalintaas dambe wuxuu u tagaa inuu la hadlo Jitra markaasay gacantiisa bidix ku dhuftataa dhabarka gabadha. Jitra oo ka xanaaqday falkaas ayaa cabasho ka gudbisa Fikram waxaana looga yeeraa xafiiska maamulaha. Inta uu la hadlayo maamulaha Fikram wuxuu ka raaligelinayaa qaladkiisa. Wuxuu soo saaraa Jitra bannaanka isagoo u xaqiijinaya inuu si gaar ah u raaligelin doono. Bannaanka Fikram wuxuu isku dayaa inuu u sheego inay gacantiisa bidix ahayd tii ku dhuftay laakiin Jitra waxay u malaynaysaa inuu sheekooyin iska alifayo waxayna kaga tagtaa xanaaq. Sawirka xiga Fikram wuxuu ogaadaa in wiilal kuliyadda ka mid ah ay dhibayaan Jitra oo ay ku jeesjeesayaan. Isla markiiba wuxuu u tagaa wiilashii wuxuuna kula dagaalamaa qaab xarago leh isagoo qof kasta ka yaabiyey gaar ahaan Jitra. Dhaqdhaqaaqiisa ayaa ka dhigaya inay jacayl u qaado markiiba waxayna go'aansataa inay u qirato. Maalinta xigta Jitra iyo Fikram ayaa la arkaa iyagoo wada hadlaya. Isla markii Jitra ay rabtay inay u qirato dareenkeeda Fikram waxa uu soo dhacaya wicitaan degdeg ah oo uga yimid walaashiis. Wuxuu helayaa wicitaanka wuuna baxayaa isagoo u sheegaya Jitra inuu soo laaban doono muddo kadib. Hadda iyo waqtigan Jitra waxay xusaysaa in Fikram uusan weligiis dib u soo laaban ayna la kulmayso 6 sano kadib. Markii dambe waxay mar kale la kulmaysaa Fikram iyo Kitu waxayna u sheegaysaa sida ay rabaan in loo sameeyo xayeysiiska shirkadeeda. Maalmo kadib markii xayeysiisku diyaar noqday Jitra waxay booqataa xafiiska Fikram waxayna u sheegaysaa in dhammaan maalgashadayaashu ay ka heleen xayeysiiska. Sidoo kale waxay u hambalyeynaysaa qof kasta waxayna shaaca ka qaadaysaa in looga yeeray magaalada New York mid ka mid ah maalgeliyaashooda si ay halkaas ugu soo duubaan ololaha inta hartay. Sawirka xiga Jitra, Fikram iyo Kitu waxay gaarayaan New York si ay wax u duubaan waxaana soo dhaweeyay soo saarihii. Duubistii waxay u dhacday sidii laga filayay fiidkiina Fikram iyo Jitra waxay waqti ku wada qaataan meel qurux badan oo badda agteeda ah. Fikram ugu dambeyntii wuxuu ka raaligelinayaa Jitra inuusan dib ugu soo laaban 6 sano ee la soo dhaafay. Marka hore Jitra aad ayay uga xanaaqaysaa laakiin markii Fikram uu sharaxo inuu u maqnaa dhimashadii degdega ahayd ee aabihii iyo guurka walaashiis markaasay xoogaa degaysaa. Kadib Fikram wuxuu kaloo u sheegaa Jitra inuu ku laabtay kuliyadda si uu u raadiyo balse uu waayay. Wuxuu isku dayay inuu la xiriiro laakiin ma uusan haysan lambar ama ciwaan uu ka bilaabo. Ugu dambeyntii wuxuu sheegayaa inuu jeclaa welina uu jecel yahay. Xataa magaca shirkadiisa oo ah Artak waa magaceeda oo xarfaha la isku weydaariyey. Markay maqlayso tan Jitra waxay ogaanaysaa inta uu Fikram jecel yahay waxayna ku qabsataa hab adag. Sawirka xiga kooxdu waxay ku soo laabanayaan dalkii Hindiya. Fikram waxa uu soo dhacaya wicitaan uga yimid gabadha uu abtiga u yahay ee Mahalaksimi. Wuxuu ka raaligelinayaa inuu kadib dhacay wuxuuna u ballan qaadayaa inuusan u ogolaan doonin hooyadeed inay geliso hoyga gabdhaha. Taas kadib maalinta xigta Fikram wuxuu ku soo laabanayaa guriga wuxuuna la yaabaa inuu arko gurigii oo burbursan. Markii uu weydiiyey dadka waxa dhacay Tanali ayaa u soo dhawaanaya wuxuuna u sheegayaa inuu dhacay qarax haanta gaaska ah uuna ku dhintay ninkii walaashiis qabay iyo Mahalaksimi. Wuxuu kaloo xusayaa in walaashii Fikram ay aad u xanuunsan tahay ayna ku jirto qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka. Fikram aad ayuu uga naxaa warkaas laakiin wuu istajiyaa wuxuuna aadaa isbitaalka si uu walaashiis u arko. Isbitaalka dhexdiisa dhakhtarka ayaa u sheegaya Fikram inuu u baahan yahay inuu si fiican u daryeelo walaashiis si xusuusteeda dib loogu soo celiyo maadaama ay dhaawac culus ka qabto madaxa. Kadib Fikram waxaa laga codsanayaa inuu saxiixo warbixinta dhimashada ee ninkii walaashiis qabay iyo Mahalaksimi.
dhimashooyinka degdega ah dartiis Fikram aad ayuu u dhibaataysan yahay. Wuu joojiyaa dhoola caddaynta wuxuuna yareeyaa la hadalka dadka. wuxuu si joogto ah u xusuustaa dhammaan waqtiyadii fiicnaa ee uu la qaatay gabadha uu abtiga u ahaa wuxuuna ku sii dhex milmaa murugada. Maalin maalmaha ka mid ah inta uu Fikram ku murugaysan yahay xafiiskiisa Jitra ayaa u dhawata waxayna soo jeedinaysaa inay bannaanka u baxaan si ay casho usoo wada cunaan. Kadib maqaayadda dhexdeeda Jitra waxay isku daydaa inta ay karto inay dejiso Fikram balse kuma guulaysato. Wax yar kadib markii labadoodu ay ka soo baxayaan maqaayadda Fikram wuxuu dareemayaa saacado kala duwan oo ku yaala gidaarka gadaashiisa halka laga qabanqaabiyo dadka. Kadib markuu si taxadar leh u eegay farqiga waqtiga ee u dhexeeya New Delhi iyo New York Fikram wuxuu ogaanayaa in Mahalaxmi ay weli nooshahay maadaama uu la hadlay iyada ka hor intaanu kasoo bixin New York abaare 4 galabnimo warbixinteeda dhimashadana ay sheegayso inay dhimatay 3:15 daqiiqo. wuxuu markaas ku booriyaa Jitra inay aado isbitaalka oo ay dib u hubiso warbixinta halka uu isaguna booqanayo xarunta booliiska si uu ula hadlo saraakiisha. Inta uu u socdo xarunta booliiska qof ayaa horteeda ku tuuraya xadhig musmiiro leh taas oo keenaysa in dhammaan taayarada gaariga Fikram ay dilaacaan. taas kadib Fikram waxa uu soo dhacaya wicitaan lambar qarsoodi ah halkaas oo ninka sharka leh ee filimka oo la yiraahdo Arun uu kula hadlayo. Halkan waxaa lagu ogaanayaa in Mahalaxmi la afduubtay. Arun wuxuu sheegayaa inuu isagu yahay kii bambada ku rakibay guriga Siridevi uuna dilay ninkii walaashiis qabay islamarkaana uu si xun u dhaawacay Siridevi. Isla xilligaas qof gadaal ka yimid ayaa isku daya inuu tooray ku dhufto Fikram laakiin gacantiisa bidix ayaa joojisa weerarka waxayna isla goobtii ku dhashaa ninkii soo weeraray. Sawirka xiga Fikram wuxuu u dhawaadaa xarunta booliiska wuxuuna isku dayaa inuu weydiiyo sarkaalka labaad warbixinta dhimashada. Nasiib darro sarkaalku wuu diidaa inuu siiyo jawaab wuuna cayriyaa. wax yar kadib Fikram wuxuu booqdaa dhakhtarkii saxiixay warbixinta dhimashada wuxuuna ogaadaa in qof uu u hanjabay dhakhtarka inuu saxiixo. maalinta xigta Fikram, Jitra iyo Kitu waxay mar kale aadaan xarunta booliiska waxayna weydiisataa sarkaalka inuu siiyo macluumaadka dhabta ah ee kiiska. markan sarkaalka sare ayaa ugu yeera xafiiskiisa wuxuuna ku jeesjeesaa iyaga. markuu arkay tan gacanta bidix ee Fikram ayaa weerarta sarkaalka waxayna madaxiisa si joogto ah ugu garaacdaa miiska dushiisa. Kitu iyo Jitra waxay si dib leh ugu guulaystaan inay ka soo bixiyaan gacanta oo ay ka soo saaraan xarunta booliiska. kadib tan Fikram wuxuu booqdaa Dr. Rajan wuxuuna ka codsanayaa inuu ka saaro dareen wadayaasha dheeriga ah ee gacantiisa bidix. Dr. Rajan ayaa markaas u sheegaya inta ay hooyadiis rabtay in qayb ka mid ah wiilkeeda labaad ay ku dhex jirto gacanta Fikram uuna u bixiyey Beetal. isla markii uu ogaaday inay ahayd rabitaankii hooyadiis in labadiisii wiil ay noolaadaan wuxuu ka noqdaa qorshihii. dhanka kale Kitu wuxuu si joogto ah isku dayayaa inuu ogaado ciwaanka ninka afduubka geystay isagoo isticmaalaya lambarkiisa. wuxuu si guul leh u raadraacaa wuxuuna la yaabaa inuu arko in lambarka uu Arun isticmaalayo uu dhab ahaantii yahay lambarka Fikram. Fikram wuxuu markaas ogaanayaa in Arun uu isticmaalayo tiknoolajiyada lagu minguuriyo kaarka simka uuna isaga ka soo wacay lambarkiisa. waa yaab weyn. sawirka xiga inta uu Fikram la hadlayo Siridevi oo miirla ayaa waxaa mar kale soo wacaya Arun kaas oo u soo diraya meesha uu joogo kuna caabiyey inuu yimaado oo uu la kulmo. maadaama uusan haysan dooq kale Fikram wuxuu gaarayaa meeshii loo sheegay wuxuuna la kulmaa nin dukaan haysta. ninkii dukaanka haystay ayaa siiya boorso Arunna wuxuu taleefanka ugu sheegayaa inuu boorsada geeyo xarunta tareenka. si uun Fikram wuxuu ku gaaraa xarunta tareenka balse tuug ayaa ka dafaya boorsada oo la cararaya. Fikram ayaa ka daba cararaya oo qabanaya balse Arun wuxuu u sheegayaa in tuugu uu qayb ka yahay qorshaha uuna iska sii daayo. kadib Arun wuxuu siiyaa Fikram 15 daqiiqo inuu ku soo gaaro. isagoo daalan Fikram wuxuu cabaa dhalo biyo ah oo uu ka qaatay qof qariib ah wuxuuna u cararaa dhanka goobta loo sheegay. nasiib darro Arun wuxuu shaaca ka qaadayaa in biyaha uu cabay Fikram ay ku jireen dawo ka dhigaysa inuu seexdo dhowr daqiiqo gudahood. isagoo ka cabsanaya inuu gaari waayo goobtii waqtigii loogu talagalay Fikram wuxuu gacantiisa dhexgeliyaa loox koronto oo agtiisa ah wuuna iskoronteeyaa. taas darteed wuxuu dib u helaa miirkiisii muddo yar wuxuuna sii wadayaa orodka dhanka meeshii loogu yeeray. wax yar kadib Arun ayaa la arkaa isagoo ku sugaya Fikram isaga iyo caawiyihiisa oo la yiraahdo Nanda Kisore. Fikram oo ay si xun u saameeyeen biyaha sumaysan ayaa dhib kala kulmaya socodka. ugu dambeyntii wuxuu ku dhacayaa jidka ka hor intaanu la kulmin Arun. maalinta xigta Fikram wuxuu dib u helaa miirkiisii wuxuuna la hadlayaa saaxiibadiis xafiiskiisa. wuxuu isku dayaa inuu sawiro meelihii uu maray si uu u helo calaamad ku saabsan sababta Arun uu halkaas ugu yeeray. markaasuu si lama filaan ah u xusuustaa gaari uu arkay habeenkii ka horreeyey wuxuuna ka helaa isagoo dhigan buundada hoosteeda kaas oo dhabarka ku leh lambarka 21. kadib markuu helay lambarkii qof ayaa madaxa kaga dhuftay wuxuuna keenaa meel qashinka lagu daadiyo. halkan koox badan oo ka mid ah raggiisa Arun ayaa isku daya inay dilaan laakiin Fikram wuxuu kula dagaalamaa si geesinimo leh isagoo kaashanaya gacantiisa bidix wuuna ka adkaadaa dhammaantood. markuu ku laabtay xafiiskiisa gacanta bidix ee Fikram oo hadda ah saaxiibkiisa ugu fiican ee la yiraahdo Aditya ayaa soo qaadaysa bas yar oo carruurtu ku ciyaarto inta ay kooxdu isku dayayso inay fahmaan calaamadda khariidada. markii Aditya uu baska kor u tuuray Fikram wuxuu ogaanayaa inay jirto xiriir u dhexeeya. xiriirka u dhexeeya afduubka iyo shilkii baska ee uu isagu kaliya ka badbaaday. wuxuu kaloo xusuustaa inuu maqlay rakaabka oo ka sheekaysanaya qof la yiraahdo Arun ilbiriqsiyo ka hor shilka. kadib markuu helay calaamadan Fikram wuxuu soo jeedinayaa in saaxiibadiis ay raadiyaan xog dheeraad ah oo ku saabsan shilka. inkasta oo uu helay dhammaan macluumaadka ku saabsan rakaabkii dhintay haddana Fikram way ku adkaataa inuu xiriiriyo kiisaska. kadib markuu xoogaa fekeray wuxuu xusuustaa Arun oo akhrinaya tuduc caadi ahaan loo isticmaalo xafladaha arooska. halkan waxaa lagu ogaanayaa in Arun uu qorshuhu ahaa inuu noqdo ninka ay isguursadaan Siridevi sanado ka hor laakiin maadaama Siridevi ay jeclayd qof kale Fikram ayaa ka caawiyey inay ka cararto arooska taas oo Arun ka dhigtay mid qof kasta uu ku qoslo. weli ma uusan iloobin bahdilkaas taasina waa sababta uu aargoosanayo.
markii dambe Fikram wuxuu booqdaa aabbaha Arun wuxuuna weydiiyaa haddii uu og yahay meesha wiilkiisu joogo. Aabbaha Arun wuu diidaa inuu wax og yahay. Si kastaba ha ahaatee wuxuu shaaca ka qaadayaa in markii ugu dambaysay ee uu la kulmo wiilkiisa Arun uu qorsheynayay inuu dilo 21 qof ee noloshiisa dhibka u geystay. Isla markaas Fikram waxaa soo wacaya Arun wuxuuna u sheegayaa inuu isagu yahay kii bambada ku xiray guriga Siri Devi. Wuxuu kaloo xusayaa inuu u daryeeli doono Mahalaxmi sidii gabadhiisa oo kale wuxuuna u sheegayaa Fikram inuu afduubtay Siri Devi sidoo kale. Sawirka xiga Arun waxaa la arkaa isagoo la hadlaya Siri Devi. Inta ay wada hadlayaan waxay u sheegaysaa inay jiraan laba walaalo ah oo ku dhex nool hal jir. Waxay kaloo u xaqiijinaysaa Arun in walaalaheed ay dhawaan iman doonaan oo ay badbaadin doonaan. Dhanka kale Fikram wuxuu xusuustaa Mahalaxmi iyo waxyaabaha ay jeceshahay. Maadaama Arun uu xusay inuu siin doono Mahalaxmi wax kasta oo ay rabto Fikram wuxuu booqdaa goobta ay aadka u jeceshahay ee jalaatada wuxuuna arkaa ninka gacanta midig u ah Arun oo iibsanaya jalaato badan oo nooca ay gabadhu jeceshahay ah. Kadib wuxuu raacayaa ninka wuxuuna gaarayaa bakhaarka uu Arun ku haysto afduubka. Ka hor intaanu Fikram gaarin Arun raggiisa ayaa soo weeraraya laakiin waxba ma yeeli karaan. Inkasta oo ay ka badan yihiin Fikram wuxuu kula dagaalamaa raggiisa wuxuuna dhulka dhigaa mid kasta oo iyaga ka mid ah. Kadib markii dhammaan raggiisii laga adkaaday Fikram wuxuu u dhawaadaa Arun wuxuuna ku dhuftaa dhowr feed oo aad u xoogan. Isla xilligaas Mahalaxmi ayaa soo muuqata oo u yeeraysa Fikram. Markii uu dareenkiisu u wareegay dhankeeda Fikram waxaa si xun u garaacaya Arun. Markii Fikram uu dhulka yaallo oo uu qarka u saaran yahay inuu quusto gacantiisa bidix ee Aditya ayaa ka caawinaysa inuu kaco oo uu dagaalamo. Fikram wuxuu kaloo ku guulaystaa inuu badbaadiyo Mahalaxmi dabin ay ku dhici lahayd wuxuuna u qabtaa si adag. Arun wuxuu isku dayaa inuu ku tuuro silsilad bir ah oo fiiqan dhanka Fikram laakiin Aditya ayaa qabata silsiladii dibna ugu tuurta Arun taas oo kaga dhacaysa xabadka isla goobtiina ku dilaysa. Sawirkii ugu dambeeyay Fikram wuxuu u celinayaa Mahalaxmi walaashii Siri Devi wuxuuna daawanayaa iyadoo qoysku dib u midoobayo. Haddii aad ka heshay filimkan la yaabka leh fadlan saar like si aad noo dhiirigeliso. Dheh oo ku soo biir reer xogta filimada si aysan ku dhaafin filimada dambe. Faaladaada noogu reeb qaybta hoose ilaa iyo marks xigta nabadgelyo.